اوكي، السلام عليكم. بحير وكادي سؤال كجواب. ما تقانا أفرت آيادات إلهي سبحانه وتعالى وإسكو حري حق إساق أوليه هاي أو إن لعابدو إيو حق والدك أوليه هاي أو إن وناق لغلا دقمو أو باري لو نقضو. أفر آيادات جرت قرآنك مت سنة جرتو أيضا لو داري كرو، لكن أفر ست توس إسكو حري ساجرتو إلى صعو. سورة البقرة آيات كوبادا كجرت قرآن كصوب الله بينا. سورة البقرة آيات كجرت حق إلهي عبادة حق والدك إن الإحسان الله سما إسكو حريسة وحاوا آيات لهيسة. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. تسمى هيسا من دلوات سورة النساء واي. إلهي وحوله سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. مركز رئيس نقطة يعني ولا سكحر لبدي حق وسكحرين سكول لما نيين. آيات سدحات سورة أنعام واي. سورة الأنعام. سورة أنعام إلهي وحوله وقل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آيات أفراد وسورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. maxaa laga faa'iidaa afartaas aayadood Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu ku soo celceliyay markasta oo xaq isaga uu leeyahay oo ah in la caabudo inuu ku xijiyay ama uu ku lamaaneeyay in waalidka ihsaan loo sameeyo. waxay laga dhansanaa laga dareemayaa sida cad ahmiyadda ay leedahay iyo sida ay laga maarmaan u tahay. xadiidkina waa tuu ahaa raali ahaanshaha waalidka iyo raali ahaanshaha Ilaahay way isku xiran yihiin. raali carada iyo waalidka iyo carada Ilaahayna way iska dhashaan oo haddii aad waalidka ka caraysiisid Ilaahayna maaragtay wuu ku caroonayaa. ahmiyadda marka ay leedahay ayayna tusaysaa. aayadda suuratul luqmaan ku jirtaa toos cibaadadii uma sheegayso, laakiin waalidka ihsaan in loo sameeyo iyo in Ilaahay maaragtay loo mahad celiyo ama loo shukriyo oo noqonaysa iyadana kuni maxaa la cibaadadii oo noqonaysa waaye. marka si dadban ayadana loo sheegay aayaddaas. laakiin idinka idinkaga tagay haddaa garateen aayaddaas halkan kusoo qor aan is challenge gareyno.